muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay bal ila daawo dad mudaharaadaya kana mudaharaadaya in laga barakiciyo guryaha ama dhulka dabdamiska cashuurta aabayaalkeen baa dhulkan laga baxsay cirka kamaana soo dhicin dhulkan waxa weeye halkaan ku dhalan dadka xaq u lahaabana xageen naloo barakicinayaa dadku adaysa waxay ku guuraan iyo waxay maarta meel ay degaan ay haysan guura cagaf baan wataa dawladnimo miya kana waa ra'iisul wasaare Xamse Barre oo u jawaabaya dadkaas dhulka dawladda oo la yiraahdo anaa leh oo caadi noqoto oo dadku ay ku doodaan oo dadkii aqoonta lahaa kuwii mas'uuliyiinta ahaa ay caadi u noqoto dhulka aniga aan deganahay oo dawladdu leedahay maalinta la yiraahdo war dawladdii baa la uga bax inay noqoto ceeb dadka maxaa laga rabaa maxay tagiin wadawlad miyuu aqligaas foorarin aqligaas kii caadiga ah kii caadiga ma aha kana waa dhalinyaro ka gadoodsan xukun xaq darro ah oo baadil ah oo lagu fuliyay wiilkooda Said Cali waxayna ka andacoonayaan dacwo ka yihiin maxkamadda sare waxaan u taaganahay oo qorraxda u taaganahay cadaalad darrada Said Cali Macallin Daa'uud sharciga toogta iyo sharciga la sheegayo kuma qanacsanin max ka jira male ku qancimayno dastuur ma rabno dastuurku ma aanan dhalan sharciga islaamka kitaabka iyo sunnada nabiga ayaan ku dhaqannay ayaan ku dhaqannaa mana doonayno dastuur mana nolol ku xukumay haddii ra'iisul wasaarihii dalka uu sidaan u hadlayo bal ka waran xashan sheekh maxamuud maxaa laga filanayaa دكتور حسن بابا معنا هذيك أنت أبقال وأتسجار وشاكتان وأنا واحد كايرادو أبقال وحول لي هاي وحول سوقاتي أفر حلي شن حلي عنده لبي حلي ريزارو كسوقاتي علي محمد قيدي علي نور عدي هاين لبي حلينا لما دحونا كسوقاتي الشيخ شريف في حسن الشيخ هاين حلنا فرماجو ولا سوقات أي بنيف أنا وحان من سنة أنا أعتقد اعتقادا جازما ولو اعتقاد عليك لو هذا حل الذهبي ابقى صور مرتبه هذه حل علي محمد قيدي يحل فرماجه وحين اقول لي تن ابقى سدح اللي وكلت مثالا للسينا دقيست علي محمد قيدي مركو رئيس وزراء هاي كوي تبن قدومي دقمو كسيي دقمو حمر واللحيه طبعا هاي شن وحوسيي هبر قدر إيه هالمرسل الله هبر قدر إيه لو مرسل ما يصير هبر قدر إيه لو مرسله كل طبعا كلا تنفسي أبغى قدومي قبل أنا دوق مقالة المقدسة وحوكد نكل إلى محمد عمر حبيب ونن هدية يا دكتور الله يرحمه عامس نكل إلى ninka la yiraahdo waxa ka dhigay maxamed dheer oo ka dhigay aamus marka wuxuu ka dhigay maxamed dheer ninka la yiraahdo airportkana wuxuu u dhiibay maareeyo u dhiibay abgaala dekadana wuxuu u dhiibay cabdi jiino abgaala airportka wuxuu u dhiibay nin la yiraahdo dooliye sare dibla balooto oo abdulgal maaxu abgaala sara cali jeelo wasiir ku-xigeenka gaashaanka ku dhigay ciidankana uu gacanta u geliyey nabad sugidda nuur shirbo waa taliye ku-xigeenka ahaa isagaana khabiirka ahaa ayaa waday taliyana waxaa ahaay nin majarteen oo darwiish la yiraahdo laakiin ninkaana hawsha dhan kala waday marka mafaasisha dawladda oo dhan waliba qaybaha amniga oo dhan waxa gacanta ku hayay afgaan maxay maxamed dheer iyo salaam cali jeel iyo cabdi jiino iyo raggaas oo wada hubaysana dawladda gacanta ku hayay dawladda waxay cali maxamed looga dambeeyay xogo ma jirteen oo maxmuud badan la jooga farmaajo xilligiisa horta yantaan farmaajo inuu cadda ku soo xigay nuur cadde waa kala daadiyay abgaal gobolka banaadir waa ogtihiin maxamed dheer waa soo xiriyay waa ka qaadi وحجني أقل وحول السي كونسل من عيرة ومدحكي هاي وحو وذا خربا بكاري ومحمد يريا يستين وجدك نظيفيا وضد محمد بن الصاصاري وهلو دي هذه الشباب يركتليا مقاومتي أموري أسي عن شركة بالله بينك قاعدة برجل عمي عبد السلامية بختك وآخرنا هاي ساسو بدلك عنته وسارة عنته وكاد كريد
sheekh shariif wuxuu madaxweyne noqday doodanka shabaab haystaan degmada xmarweyne iyo fila soomaaliya meesha ertaa kaliya dowladdu joogtay waxaa dhibaatadaas keenay nuur cadde iyo sheekh shariif kalkiisa dagaalka wada isagoo muqaawamada hogaamiye ka ahaa fitnada dhan aaba u ahay marka intii uu sheekh shariif jooga hadda dhiigbax unbaa lagu jirayba dowlad muba jirin ma shaqaynin dagaal al-shabaab si xun looga saraya laga shaqaynaya dhammaan xilalkii ebgal ahaayeen intuu ka wada qaado habargid u dhiibay miisaan idin siinaya sheekh shariif markuu xilka degaayo habargid waxay haysteen dhegeysta habargid waxay haysteen wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga cabdisalaam bin macalin maxmuuda isku ahay oo cayra taliyaha nabad sugiddana axmed macalin fiqya ahay oo sacada gobolka banaadir amnigiisana koofi ayaa ahay oo cayra amniga ku-xigeenka gobolka banaadir oo amnigaana waxaa ahay nin habargidir oo la yidhaahdo warsame joodax oo habargidir oo saruura taliyaha booliska qaybta gobolka banaadir nin la yidhaha maalin oo isaguna habargidir oo saruura ahay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir heer gobolna waxaa ahay nin isaguna maaragtay waba sheegaba waa koofi ahay fiirsay nabad sugidda korna waxaa ahay fiqi dhammaan amniga habargiir u dhiibay habargiira oo haysa kulli ibtilaka nooga daran bana ma soo maray sheekh shariif xasan sheekhaa yimid xasan sheekh intii habargiir wuxuu ka bedelay wasiirka amniga nin xawaadlahu ka dhigay intaa kii cayr ka qaadi cabdirasaaq aanada xildhibaanka ah nabad sugidda guudna wuxuu u dhiibay sambalwelsho oo isaguna xawaadlo ah fiirsay adigu de xawaadlo iska cabsanay tiyaalkiisa iga soo koriyey ayuu habargiisa noogu bedelay qaybna habargiisa haysa oo wasaaradda amniga oo kala qaaday wasaaradda arrimaha gudaha odawaay u dhiibatay amnigana cabdirasaaq u dhiibay gobolka banaadir amnigiisa maalinkiyaa sidii usii haayay warsame joodaxna meeshiisii uu joogo u daayay maxaan ku yidhaha nabad sugidda gobolka banaadirna heer gobolna wuxuu u dhiibay nin la yidhaahdo sacad ahaayoo la dhihi jiray maaragtay oday sacad ahay u dhiibay magaciisa daawo ii gambiye waana xasuusin doonaa marka wax abgaala waxaa laga ilaaliyay hal mar hal sano kaliya tuur yarna masku duuliba kaliya oo haysla sanadkii ugu dambeeyay 16 marka isagana markuu dhowr bilood ahay uu ka qaadaaso odagii gaafoobayo oo marsado ku bedela markiiba intay barashar saareen abgaal madaxweynaha wadannada isku darsaday yireen waa taqaan abgaalna uu nugu in la yeeday in adeegan ma qabiisiyo farsamadan marka saasta ayaan ahayn wax haba yaraatee awooda ma lahayn sanadkan farmaajo markuu yimid marka muxuu ku soo kordhiyay abgaal afar xil oo xasaas waa idin sheegay hadda ka hor 31 xil oo heer qaran oo hal meel aysan uga jirin abgaal oo ka ilaaliyeen madaxweynaha abgaal ayaa la tiriyay باور شيرين كيردن شنتي مدحوين قبل كم جران أفرتي وزير أيضا كم جران أفرتي العيلان كم جران شنتي كرسورك كم جران أفرتي كابياش قرن كاي كم جران بنقدر الحقيقة حسابي بود إيميجريشن جيف كيوه ما اللي جوان مبرهايم كل يقول نحتويدي ودحفر يعني فرع عبد القادر يكون إلى قبينا يعني يما سرادي أدوي هل كاسكو عشنا حتى أنا قابل كريم حتى أنا قابل نحس شغل وديدين شريف وحاه يستين بخاري بلايدي ناس حسن معلني مركه وحنا ما بنصور مره ما انت مدحوناش هاي فرماج محو سميه مركه ربوت كاس لهور دغاي ee la yiri abgaal waa dawladda waa laga soo shay sagaan iska soo shay oo aad u xamaad waxaan ballan qaadaa wiri inaan soo celiyo awoodahaas abgaal ka maqnaay kow garsoorkii oo weligood abgaal loo ogoleyn gudoomiye ku xigeenka raafaanka u keenay maxkamadda darajada labaad waa maxkamadda sare ma ka sareysa wiil ogaan inuu nakab ku yiri waa joogay hadda ilaa hadda waa joogay shantii madaxweyne goboleedna xawaalihii ay iska daba keenayeen iyo tuuriyo cad guud loo nab ku yiri soo abgaal meesha ay fadhistaan taliyaasha ciidamada afartaan la ka ilaalin jirna odawaay waa wiilkaas ku baashaalay nab uu ku yiri militariga gobolka banaadir liman xataa iska masaakiin oo iska dacfaa joogi jiray gaarkan qamarjiga oo Umar Filis oo keenay jabadkana 15 tiknika oo ka sameeyay intuu joogo awal shan karo walaa 20 oo dacwo leeyahay aagu xira kara kaligiis ninkaas baalka oo keensaday xasan sheekh wala diraa shariif wala diraa ma soo weysaneen laana nin xoog lama rabaan maxamed dheer muxuu xira shariif nin qiimo lama rabin marka garsoorka sare hadda waa ka anaga dhigilay wala adeeg garsoorka waa meel aad u muhiim xasaasi ah intaas kaliya taliin xoog ay gool hadana kiina mas'uud ugu dareeyay sifari oo dalaq soo si iyadoo daban xabsi la raadinayo dil la raadinayo
واحد يقول الرب الحكم كبحنا عقد إلى عقد الساعة نقدر ما يصير يبقى نعيب هذا مركا من كانوا مركا شرفتي يبدي أبقى السعودية بل يرد من التلقى ما أنت باشاريس وضع السن إسراكيسة رد أبوي مثلا أبقى له لما نلقى بقى إذا البرجر كان وش جاي واحد وش جاي يألف جروبي نمكه قامي إذا كان هذا كمان دوسته ومريكو عندكم عندكم قصر يا عبد الله ونوى مركا وحبيا مركا ليدين آخرين وحن أنا قال لنا ولين وحنا وحن مركا حلكها هاي إن بدل مدحونا قيلنا يسمون نصمرين بقى حاسس يحير متقالنا ورسدلي أنت أتجا وحير إني وهل باص حتى دوميدك محتى وأنا الله وأنا قاعد وسابي يجوج مكته علي محمد قداقي وأنا قلت لي أسوع عنق عبد الله وناقي أسأل إني هل الشيء نوقف شيء من جلام ورسدلي حسن وحد كودا جاء في حاجة سلعنا وقوة أكثر سنة ورسدلي هو يدي على جابته وكان شوية ولا لها مركز وحير ورسدلي وحلا إن وحلا جنا قماين وحلا نقما يوري أنت مدحونا هاني وفرصة إن وحلا جنا قما هنا وحلا نقما وأنا كدبي كل جود مليء جوجين وكل ساري كل جود قاعد هل بدو بدك ما شيخ شريف نوقت يعلم عن قيدك صوب اللابطي وأنا قطورة وحكى له يقولوا ما يشكم هنا مركا فرماجنا مدحونا قبلها وكانوا في الفرق يقول حين إنه بدو بدك بكودي لأن مدحونا قبلها وكسينا مركا ساس واي مقيان وحبا مقلدين بهين أبقى ليه هوين ما واحد رجلنا ور قدرنا محن كورا شغله اسكم دوارت إذا بقى سوق لين هذا فرماجة واحد لشقينا وماشي حس على غير كساري وقرقر يعبد قيدي وحصلنا نسلك يسكشنا يا مريض ساسنا ولا صعبة وايد سلامة يا خير عندنا الجنات حكتها سنة قادتين هذه مهمتها وأفهيينك مدحوينها دولة الصومالية حسن الشيخ محمود الشيخ علي وجيس هذا maxay ku kala duwan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha marka la yiraahdo la dagaalanka iyo colaadda iyo nacaybka ay u qabaan qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed